بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بالخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. marka hore waxaan leeyahay hambaliyo ciid الفطر waxaan u hambaleynayaa si guud ummadda muslimka ah meel kasta oo ay dunida daafaheeda kaga nooshahay oo ay tahay ciid ay iyagu iska leeyihiin. waxaan ilaahay uga rajaynayaa madaha muslimka ah in kuwa wanaag ku wada nool barwaaqo ku nool dhulkooda nabada ilaahay ka yeelo ilaahayna inaga aqbalo acmaashii aynu soo sameynay. si gaar ah waxaan u hambaleynayaa ummadda Soomaaliyeed meel ku dhaqan tahayba. waxa kale oo si gaar ah u sii hambaleynayaa ummadda reer Somaliland gaar ahaan jaamacadda Amuud shaqaalaha iyo ardayda. waxaan leeyahay bishii Ramadaan oo aynu soo gudanay dhammaan waajibaadkii Alla ina faray inteeni Alla karsiiyay hadday soon tahay hadday salaad tahay hadday sadaqa tahay wax kasta oo aynu qaban kareynay Ilaahay ha inaga aqbalo. Allah ha inaga aqbalo maan leeyahay kuwii jannada uu ku kulmiyana Allah ha inaga yeelo. aad iyo aad bay farxad weyn noogu tahay ciid الفطر inaynu soo hambalyeeyno in la saamaxo in wanaag la wada qaado. aniguna taasum baan ku darayaa dadka inta wanaag jecel. bariyahan dambe dunida intaan naga fogeyn waxba ka yar taagan gaar ahaan wadamada muslimka ah. ilaahay waxaan iyagana uga rajaynaynaa inuu is afgaransiiyo oo waxyaabaha ku dagaalada ku bilaabmay sida macna darrada in ilaahay naga joojiyo oo inaga dhameeyo. waxay galaafanayaan ama cagaha ku jiidanayaan dagaaladaasi dad dan yar ah oo aan awoodi karin waxa hareerahooda ka dhacaya. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo dhulka nabad inooga dhigo inagana barwaaqo iyo bashbash dhexdeennana iska fahamsiiyo. hambalyo ayaan markale leeyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.